haddaba qoraagu si uu isbarbardhig ugu sameeyo habfikirka qofka qaniga ah iyo habfikirka qofka faqiirka ah waxa uu sameeyey isbarbardhig cajiib ah. waxa uuna leeyahay waxaan lahaa yaraanteedii laba aabbo qani ah iyo mid faqiir ah. labadeeda aabbaba Robert Kiyosaki waxa uu leeyahay waxay ahaayeen dad shaqo badan oo dadaal badan, nin walbana dhinaca uu nolosha uga jiro horumar badan ayuu ka sameeyay leeyahay. bilowgii nolosha ayuu leeyahay labadaba dhaqaale ku filan ayay haysteen, isku mustawa ayayna ahaayeen xagga dhaqaalaha. laakiin markii dambe aabahayga qanigeena wuxuu noqdu leeyahay ninka Hawaii oo ah meesha uu ku koray oo uu ku weynaaday kana soo jeedo Robert Kiyosaki, ninka ugu qanisan ayuu noqdu leeyahay aabahayga qaniga. kan faqiirkeena wuxuu noqdu leeyahay waxa uu dhintay isagoo deymo badan lagu leeyahay. aabahayga qaniga ah reerkiisana malaayiin dollar ayuu uga tagu leeyahay, halka aabahayga faqiirka ah nolosha dayn ku guud uu ku dhamaystay. hal wax bay isku raacsanaayeen buu leeyahay aabahayga qaniga iyo aabahayga faqiirka ah, waxayna ahayd buu leeyahay ahmiyadda ay waxbarashada leedahay. aabahayga faqiirka ah wuxuu dhihi jiru leeyahay waxbarashada akademiga ah xoogga saar, taas ayuuna waxbarasho u yaqaan u yiri. laakiin aabahayga qaniga ah waxbarashada akademiga ah ee iskuul jaamacad ilaa heerarka sare lehna wuu aaminsanaa buu leeyahay inay fiican tahay, sidoo kalena wuxuu ahmiyadda saari jiru leeyahay oo una bari jiray waxbarashada nolosha iyo waxa laga barta nolosha. qoraagu wuxuu leeyahay walow labadeeda aabbo yaraanteydii ay isku heer nolosha ama dhaqaalaha xagga dhaqaalaha ay ahaayeen, haddana fikirkooda aad buu u kala duwanaa buu leeyahay. tusaale ahaan aabahayga faqiirka ah wuxuu oran jiru leeyahay lacag jeclida ayaa shar oo dhan adduunka sabab u ah. dhinaca kale aabahayga qaniga wuxuu oran jiru leeyahay lacag yarida iyo faqriga ayaa shar oo dhan aabba iyo hooyo u ah. aabahayga faqiirka wuxuu oran jiru leeyahay kuwa qaniga ah ee lacagta badan haysto ayaa dhacay kuwa faqriga ah dhaqaalahoodii iyo lacagtoodii, taas ayaana dhashay barakacayaasha iyo colaadaha. dhinaca kale aabahayga qaniga wuxuu aaminsanaa buu leeyahay hadduusanba faqri jirin ma jireen dhac, kufsi, dil iyo barakacayaal iyo fuqaro badan oo adduunka lagu arka. yaa sax labada nin? jawaabta waxa weeyaan adaan kuu daynaya. aabahayga faqiirka ah haddii waxaa samee la yiraahdo yiri waxa uu dhihi jiru yiri waxaan ma samayn karay ama ma awoodo. dhinaca kale aabahayga qaniga ah haddii lagu yiraahdo waxaan samee waxa uu oran jiru leeyahay sideen u sameeyaa, maxaan u baahanahay si aan u sameeyo. labadan oraahood ee ah ma awoodo ama ma samayn karo iyo sideen u sameeyaa aad bay u kala duwan yihiin. midna fikir iyo suuragalnimo ayay ku tusinaysaa, midda kaleetana isdhiibid iyo albaabkaad soo xirato ayay daliil u tahay inaadan waxba isku dayin. aabahayga faqiirka wuxuu oran jiru leeyahay Robert Kiyosaki si fiican wax u baro si aad shirkad weyn oo fiican oo mushaar fiican ku siiso oo ugu shaqayso. aabahayga qanigeena wuxuu oran jiru leeyahay si fiican wax u baro si aad shirkad fiican u gadato ama aad shirkad fiican u samayso. aabahayga faqiirka wuxuu ku doodi jiru leeyahay ama ku calacali jiray reerkayga iyo caruurteeda ayaan qani la noqon waayo, biil, cunto iyo adeeg ayaa la iiga baahan yahay, sidaa daraaddeed ayaanan qani la noqon waayo. dhinaca kale aabahayga qaniga wuxuu ku doodi jiru leeyahay ama uu dhihi jiray waa inaan qani u noqdo reerkayga iyo caruurtayda dartood si aan biil fiican, cunto fiican iyo adeeg fiican ay u helaan. waxa khasab igu inaan qani noqdo. aabahayga faqiirka wuxuu igu oran jiru leeyahay khatarta iska ilaali oo weligaa khatar ha u bareerin si aadan wax la-aan u noqonin, halka aabahayga qaniga uu igu oran jiro igula talin jiru leeyahay khatarta sida loo maareeyo baro hana ka cabsanin. labadaa fikir siday u kala duwan yihiin adaan kuu daynaya inaad isbarbar dhigto. aabahayga faqiirka wuxuu igu oran jiru leeyahay hantida ugu weyn ama maalgashiga ugu weyn aad samayn karto waxa weeye inaad guri dhisato, aad degtood ku noolaato aad iyo ubadkaada. aabahayga qanigeena wuxuu oran jiru leeyahay guri aad dhisatay oo aad iyo reerkaaga aad ku noolaataan hanti ma aha ee waxa uu kaaga baahan yahay dayactir, waxa uu kaaga baahan yahay kharash, waxa uu kaaga baahan yahay koronto, waxa uu kaaga baahan yahay biyo, waxa weeyaan waxaad adeegsanaysa hanti ma aha. aabahayga faqiirka waxa uu dhihi jiru leeyahay weligay qani noqon maayo, maba suuragal maba ahba duruufta ay haysatay xaalkan ku jiro qani ma noqon karo. dhinaca kale aabahayga qaniga wuxuu ku doodi jiru leeyahay haddii waxaa iyo waxaa samee la yiraahdo waxa iyo waxaa dadka aqniyada ama sameeyaan aniguna qani baan ahay, wadadii qaninimadan haaya inaan qani noqdaan doonaya, dadka aqniyadeena waxa ma sameeyaan, sida daraaddeed arrintaasiita ma samayn karo. Robert Kiyosaki intaa kuma ekaanaya waxa uu leeyahay waxyaabaha cajiibka ah aabahayga qaniga ee ka bartay waxa ka mid ah farqiga u dhaxeeyo faqriga
iyo cayrnimada. Cayrnimada waxa uu leeyahay waa wax muddo kooban joogo oo laga bixi karo. Adoo maanta cayr ah ayaad berri qani noqon kartaa. Adoo maanta qani ahna berri ayaad cayr noqon kartaa. Marka waa wax aanan joogto ahayn. Laakiin faqrigu uu leeyahay, aabbahay waxa uu baru leeyahay qaniga ahaa, faqriga inuu yahay wax joogto oo qofka weligii uu la noolaado. Ama bala kala dhaxla xataa oo dadka caqliyadii uu waalidkii ka soo gaarin isaga sii dhaqmaa laga yaabo. oo reemiga oo adiga arkay xoolaha la iska daba socda xoolaha iyaga ayagoo tiro badan baan haddana laga manaafacaadsan oo faqri laga yahay. Marka waxa uu leeyahay aabahay wuxuu oran jiray leeyahay cayrnimaha ka cabsanina faqrinima ka cabso iskana ilaali. Meeshan waxa igu soo dhacay xadiid kale nabiga sallallahu alayhi wasallam ka sugnaaday ka soo arooray oo nabiga duco uu duceysanay ay kamid ahayd Allahumma inni a'uudhu bika min al-kufri wal faqr. Ilaahu waxaan ka magan galay kufri iyo faqri. يعني النبي صلى الله عليه وسلم waxa uu barbar dhigay faqriga kufriga gaalnimada ayuu barbar dhigay. Dadkana waxaad moodaa in loo hoosaasiyo amaba faqriga looga dhigo wax inuu yahay diiniyan xataa fiican, laakiin taas waxaan isleeyahay waa in dib loogu laabto amaba waa in ma ahan sax dabcan yani inuu qofka hanti iyo dhaqaale meel walba ka raadiyo oo xalaal iyo xaaraan uusan u eegin waxa uu kasbanayo oo taas muhiim weeyaan. laakiin haddana faqriga waxa weeyaan wax ilaahay laga magan galo waxa weeyaan bulshadeennana aad hoos ugu dhigay. Isbarbardhigaas marka walaalayaal Robert Kiyosaki waxa uu leeyahay waxa aan ka baranayno waxa weeyaan qofka siduu u fikirayo iyo fikirkiisa iyo qanaacadkiisa ayaa qani ka dhigi karo ama faqir ka dhigi karo. Aabahaygii qaniga noqday waxa qaniga ka dhigay waxa ay ahaayeen buu leeyahay fikirkiisa iyo siduu u fikirayo. Dhinaca kale aabahayga faqirka noqday walow bilowga noloshiisa wax ku filan uu haystay waxa weeyaan buu yiraahdaa fikirkiisa iyo nolosha aqliyadiisa ayaa ka dhigtay leeyahay qof faqir ah oo waxba haysan deymana ubadkiisa dhaxal siiyay. Waxa muhiim ah marka walaalayaal inaan iska ilaalino dadka faqriga nooga dhigay inuu wax fiican yahay. Faqriga wax fiican ma ahan, qofkuna waa in uu wada xalaal ah ku raadiyo in uu asagana isku filnaado ubadkiisa iyo reerkiisa iyo ehelkiisana uu ku filnaado dhaqaale ahaana uu noqdo qof gacanta sare leh oo qani ah. Nabiga sallallahu alayhi wasallam sidoo kale waxa ka sugnaaday xadiid uu Sa'd ibn Abi Waqqas ku leeyahay an tad'a warathataka aghniya khayrun min an tad'ahum 'alatan yatakaffafuna an-nasa fi aydihim. Nabiga sallallahu alayhi wasallam Sa'd markii uu soo bandhigay in uu ku sadaqaysto hantidiisa oo dhan waxa uu nabiga ku yiri sallallahu alayhi wasallam waxa ubadka ku dhaxlayo in aad qaninimo ooga tagto ayaa ka khayr badan in aad ooga tagto dad aan waxba haysan oo cayr ah oo dadka kaleeto gacmaha u horsanayo. Marka aynu iska ilaalino dadka inugu qancinayo in faqriga uu wax fiican yahay, isla dadka ka ehbiyo in ay qani noqdaan ama ay tijaaro inta galaan ganacsi iyo dhaqaale samaystaan oo ku jeesjeeso ayaad arkaysaa inay yihiin kuwa ugu horeeya tahriibka, kuwa ugu horeeyo shaqooyinka, kuwa ugu horeeyo wax isdabamarinta, kuwa ugu horeeyo musuqmaasuqa. Marka aynu iska ilaalino dadka iyaga ah. Qoraaga hordhiciisa cajiibka ah wali ma dhamaanin, intii xiisaha lahaydna wali way hartay. Intaasita waxaan uga gudbaynaa isbarbardhiga uu sameynayay. Waxa uu soo bandhigayaa hordhaca buugga sidoo kale sheeko qabsatay markuu yaraa oo 9 jir ah 1956 xilli ay taariikhdu ahayd.